السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قفك وحا في عن قفك مؤمن كأه مر رب عز وجل إنه دواذو وحيالا رب عز وجل أو قفك دوانا وحاكمت إنه دعوينك أذكارتا والنبي صلى الله عليه وسلم إنه جدي إنه قفك حفظيو qofkana markuu xifdiyo ducadaas rabbi caza wajal ayaa qofka xifdinayo. qofka dad badan ayaa waxay ka cabanayaan shar iyo dhibaatooyin iyo shaytaan jin waxyaalo badan ayay ka cabanayaan. qofkaas hadaa fiirsid noloshiisa waxyaalo ay ka maqan tahay waxay tahay ducooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu jideeyo qofka awqaadka kala duwan inuu qofka ku dhignaado oo xifdiyo ilaaliyo rabbi caza wajal kadibna oo xifdiyo qofkaas ducooyinkaas adkaartaas xifdiyay laana ducooyinka waxay ku tusinaysaa qofka inuu rabbi caza wajal ku tiirsan yahay, rabbi caza wajal inuu tawakkal saaranayo, rabbi caza wajal inuu ka dalbanayo inuu xifdiyo. rabbina caza wajal hadaa taas weydiisatid wuu ku xifdinaya oo ku ilaalinaya qofka marka taas ayaa loo baahan yahay. ducada maanta ayaan soo qaadanayna ay waxay tahay ducada qofka markuu guriga ka baxayo wax la aqriyo ducada nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu jiday ay waxay tahay qofka inuu ku baxo rabbi caza wajal magaciisa. bismillah توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله وحنكو بحيا ربي عز وجل مجعيس. توكلت على الله وحنا توكل صارتي أنت لا صارتي أمركي جدا أوليبتي ربي عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيلت أبوت وما سجنان إلا ربي عز وجل. sidoo kale waxaa jirto duco kale qofka loo baahan yahay inuu aqriyo marka gurigiisa ka baxayo. ducadaas ayaan sheegaynaa qofka waxaana fiican inuu xifdiyo. haddii qofka xifdisaneen hataa ducadaas markuu baxayo ku talgalo inuu ducadaas ay muhiim tahay inuu la yimaado sidoo ajarkaas u helo fadligaas uu helo. mobilka ha ka aqriyo ama xisnu muslimka ay ku qoran tahay ha ka aqriyo qofka oo markaas uu rabo inuu gurigiisa ka baxayo doosan xifdisaneen insha Allah. ducada kale ay waxay tahay اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. sidoo kale waxaa fiican ducadaas inuu xifdiyo qofka oo la yimaado labadaas duco aan ku dadaalno insha Allah. ama wal markaan bixayno aan ku dadaal inaan aqrino inaan sidoo kale walaalihiina kale aan barno sida iyagan ajarkaas fadligaas ay u helaan ay la yimaadaan markay guriga ka baxayaan fadligaas ay u helaan. taas aan ku dadaal barakumullahu fiikum. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.